waxaa maanta kulan laba maalmood socday ugu soo gabagaboobay xarunta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta culimo u diinka aqoon-yahanada iyo haweenka kaasoo looga gol lahaa sidii loo heli lahaa sharci lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga. kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ayaa waxaa maanta gabagabadiisii kasoo qaybgalay wasiir ku-xigeenka iyo madax ka socotay hay-adda UNICEF iyo weliba agaasimaha hay-adda Baswa. inta kulankaasi lasoo gabagabeynaya Ismaaciil Xaaji Cabdi oo isagoo ka tirsan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta oo isagu faahfaahin ka bixiyay sharciga qabyada ahaa oo kulankaasi kasoo baxay. gudniinka fircooniga iyo noocyadiisa waxaa kamid ah qodobka ka soo baxay haddii qodobkooda wuxuu ahaa haddii qofka lagu sameeyay gabadha lagu sameeyay gudniinka lagu sameeyay dhibaatada loo geystay ama caabuqa ay kala kulantay ee u dhimato hada sharci wuxuu ka qabaa culimada markii soo saaray waxaa kamid ah dil ama qisaas. kan kale wuxuu ahaa waxaa kamid ahaa haddii mataqaanaa xubin jirkeeda kamid ah uu naafoobaana hadee waa diyo baa kamid ah sidii manac shariica islaamka qabtay. haddii mataqaanaa iyo in qodobka saddexaadna wuxuu ahaa draftiga la sameeyay markaan aan ka xuso ganaax xarig ayagana loo sameeyo mana dadkii ku kaalmeeyo kale barnaamijkan ama qofkii mataqaanaa sameeyo kale ama ku kaalmeeyo kale ama raali ka adqabtaas camal ah oo sharciga draftiga uu soo baxay in xarig ama xabsi dhan 3 sano 2 sano 4 sano inkastoo u taasho dadka ka dambeeya oo draft yahay oo la sii faahfaahin doono ama wax laga bedeli doono ka rasmiga u dambeyn doono laakiin barnaamij draft inahaas ayaa hadda la sameeyay aad buu u fara badan yahay laakiin muhiimadda lagu soo koobi karo 3 shay oo qaybsanaa qisaas diyo iyo xabsi iyo ganax lacag in laga soo saaro bay ka soo saareen danayaashii workshop ka soo qaybgalay arintaasna hirgeli doonto kan ku xiga oo la sugi doono sharci qaan la sugu yeeri doono marka ay mataqaanaa khulaasayaan ama ay saxaan ay habeeyaan ka bacdina uu noqon doono sharci rasmi ah oo noqon doono markii walaal wasiirada baaskariyan baarlamaanka uu ansixiyo kaasoo marka uu soo baxana uu noqon doono mid meel kasta la gaarsiin doono gobolada degmooyinka iyo meelaha fog ama xeebaha ama tuulooyinka ka horeyn doonto wacyigelin dadka lagu wacyigelin doono nidaamka ama sharciga la soo saaray baaskareeyay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Maxamuud Siciid ayaa isagu si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulankaasi waxaana uu dadweynihii ka soo qaybgalay u sheegay in muhiimad weyn ay u leedahay wasaaradda cadaaladda in la helo sharci lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga isla markaana ay kulamada dambe aqoon-yahanada iyo waliba garyaqaanada ay u qaban doonaan. oo Soomaalidu ay muddo u dhaqmaysay bahalkan la yiraahdo fircooniga oo ummadda Soomaalidu afkan ay ku haysay ku dhaqmi jiray waan dad muslimiin ah yihiin waxaanu ognahay fircoon iyo wixii raacaba in naarta lagu shubayo marka hore waxaan ka baryaynaa inaynu noqono ummad fircoon wadada uu qaaday aan qaadin rabi ka leexiyo oo Ilaahay wadada ayna ka reebo inagu waxaanu dad muslim ah dastuurkeena waxaa ku qoran wixii diinta khilaafsan wadankeena inay ka shaqeeyaan. wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ayaa muddadan dambe waday dadaal ay ku doonayso in la helo sharci lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga.